kadib markii uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. degmada cusub ee Xeega ee ka tirsan gobolka Awdal ayaa maanta waxa shir jaraa'id ku qabtay hotel Sowey magaalada Boorama beelweynta Muusafiin iyadoo shirka jaraa'id si wada jir u qabteen dhalinyaro haween waxgarad u qaal iyo aqoon-yahano siyaasiyiin dhamaantood waxay soo dhaweeyeen hambalyeeyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ciddii ka qayb qaadatay magacaabista degmadaasi cusub ee Xeego waxaana hadaladoodii kamid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم أنا مولود داخل الله وحن ما ظهر كان شركة جرائد شغلني مني لبع أجندة كواد نقولها إن عن تاجر مقله قدام حي بيروي الموظفين ديجان كبورة ما تجمد بورة ما الجو كأوضل وحن تاجر سن حي وصول وين تجمد الرسول إن بدحينا جمهورية الصومال للمدن أحمد محمد محمود سيلانيو وأمك عابد تجمد حيكم وحلا نحمد وحلا نحمد حين ملقها جيما موسك قرامبا من تاريخ تقول الله ما نقول إسا نقولنا ما يسو تجمعين كي هراء أنت لما قعابي ولسيدو دي حرق واحد نقول دون تجمع إسبدل له ممكن يميزان له سامين نقول يرتب مستواها كرنك يو هناك ديجامين تعالك degmada Xeego waa degmada qaali ahaan logistic marka loo eego degmooyinka loo bixiyo waa qasiibtay waa degmo resource leh waa degmo macdan leh waa degmo wax soo saar beereed leh waa degmo more populated dad badan ku nool yihiin tirada dadka iyo khayraadka Ilaahay ugu galladay baa waxay u saamixi doonaan degmadaasi inay ka mid noqoto degmada labaad ee soo raacda degmada Boorama ee gobolka Awdal beelweynta Muusafiin inaanu hambalyeeyno degmada Xeego oo noo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Allah xafido waxaan kaloon hambalyeeynaa kal iyo laba u direynaa Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal Allah xafido isagana oo aad uga soo shaqeeyay arrintan muddo dheerna ka shaqeynayay kana bilaabay inuu horta marka waraysa maxay ahayd jidka baneeyo Ilaahay xafido waxa kale oo aan hambalyo iyo bogaadin u direynaa dhammaan intii ka soo shaqeysay degmadaas Xeego waxaanu nahay beelweynta Muusafiin waxaanu taageersanahay xisbi meel kasta oo adduunka ka joogno xisbi xaakimka kulmiye oo gudoomiyaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi oo ku xigeenkana ka yahay Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici Allah xafido ahaantii haddii aan nahay beelweynta Muusafiin ee deegaanka ku ah gobolada Awdal Salil iyo Gabiley iyo dowladda deegaanka Soomaalida iyo Jubbaland Jabuutiba waxaan leenahay anagu waxaan taageersanahay beesha balaaran waxay taageersan tahay dowladda xukuumadda kulmiye oo la garab joogno muruq maal iyo cod inta iyo cududba waxaan leenahay oon taageersanahay dowladda cusub ee hogaankayga ka noqon doono Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u sharaxan isaguna kursiga madaxweyne ku-xigeen aad iyo mahad celinayna Suudaanka guud ee beelaha Galmudug dhaqanka ee beelaha Galmudug iyo Suudaanka guud ee beelaha Habar Arfaan oo isagu guntiga dhiisha saga dhigay sidii uu gunti xidhay sidii uu degmada loo magacaabi lahaa runaantii dadaalka ugu weyn waxaan oran karnaa isaga ayaa ka galay iyo intii kala soo shaqeysayba waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay Suldaan hambali kaloon aad ugu hambalyeynayna xukuumadda kulmiye runaantii doorka iyo waxa muuqda ay ku leedahay insha Allah taala waan hambalyeynayna sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Suudaanka guud ee beelaha Habar Arfaan ahna Suudaanka guud ee gobolada galbeedka aad buu runaantii uga qayb qaatay in la magacaabo degmadaasi maal iyo muruqna uu galiyo runaantii una mudan yahay in la taageero waan taageersanahay insha Allah taala barnaamijka maanta isugu timaadeen wax weeyaan anigoo ku hadlaya guud ahaan afkii beesha Habar Arfaan waxay dhibaankii ay doorteen waxaan taageero weyn u muujinaya soo dhaweynaya degmada cusub ee ay noo magacaabay madaxweynaha iyo waliba waxaan mahad celinayaa intii ka soo shaqeysay Suudaanka madaxweyne ku-xigeenka inta maxaan ku raacdaa xukuumadda ka tirsan ba sidoo kale
waxa inaga la nooga baahan yahay inaynu inaguna sidaa laynoo siiyey aynu wax uga madhadhalino marka waxaan hambalyo u dirayaa maxaan ku dhahaa guud ahaan beesha habar cafaan inay u guntato barnaamijka maxaan ku dhahdaa degmada cusub ee xeego si kastaba ahaatee beeshan ayaa ka mid noqonaysa beelaha si rasmi ah u dega degmadaasi xeego. Wasmiixa Maxamed Cilmi, TV-ga caalamiga Star, magaalada Boorama.